kooxda kubadda cagta Arsenal ee ka dhisan waqooyiga magaalada London ayaa waxa ay xiiseynaysaa golayaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Keylor Navas. ciyaarahankan Costa Rica ka soo jeeda ayaana kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa uu kaga soo biiray kooxda Real Betis. wuxuuna Keylor Navas ciyaareedkan uu la daala dhacaya kursiga keedka uu in badan ka soo muuqanayo, waxaana tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Santiago Solari aanu ahayn dooqiisa koowaad, waxaana dhowr ciyaarood uu kursiga keedka dhigay golayaha heerka caalami ee dalka Costa Rica. waxaana Keylor Navas suuqa jilaalka uu ku biiri karaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal. lacag dhan 14 milyan ayayna ku heli karaan kooxda kubadda cagta ee Arsenal saxiixa ciyaarahankaasi caalamiga ee Costa Rica Keylor Navas. kooxda kubadda cagta ee Rome ee dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale ku jirta bacsiga loogu jiro ciyaarahankan, waxaana ciyaarahankan uu kula guuleystay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 3 jeer oo isku xigta tartanka xiisaha badan ee Champions League. wuxuuna markan dhibano u noqday golaha Thibaut Courtois oo xil ciyaareedkan ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid isagoo kaga yimid kooxda kubadda cagta Chelsea ee ka dhisan galbeedka magaalada London. si kastaba ha ahaatee Keylor Navas uma dulqaadanayo kursiga keedka uu dhigay tababare Santiago Solari. waxa uu doonayaa meel uu ka helayo booska joogtada, waxaana hubanti in kooxda Arsenal uu wax badan ka heli karo. golaha Bernardo Leno lagu magacaabo in badan shabaqiisa waa la gaarayay kulamadii ugu dambeeyay. golaha Peter Cech oo ahaa golahii koowaadna dhaawac ayuu ilaa iminka kaga maqan yahay kooxda kubadda cagta Arsenal, waana golaha waayeel waxaana macquul in xilciyaareedkan wixii ka dambeeya uu ka fariisto ciyaaraha gabi ahaanba golahii hore ee Blues. Peter Cech Keylor Navas ayaana fursad ka heli kara kooxda kubadda cagta Arsenal waa haddii uu go'aansado inuu ka hoos baxo Thibaut Courtois oo kulamada Champions League iyo waliba horyaalka iyo xitaa Copa del Rey lagu soo bilaabayo, oo Santiago Solari uu aaminsan yahay in wax badan uu ka wanaagsan yahay golaha Keylor Navas.